Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayda kusoo dhawaada koorsadeena Cisco Certified Network Associate ama exam numberkeeduna uu yahay 200/301 volume 1.1. Koorsadan last update kii u dambeeyay lagu sameeyay waxay ahayd August bishii hadayna dhaaftay 2024. Macalinka koorsada kula socodsiin doona waa anigoo Engineer Warda Maxamed Hayba. Anigu examkan ama Cisco Certified Network Associate waan qaatay shahaadadan. Waxaan u leeyahay khibrad fara badan. Waxaan ka saaciday arday kasto koorsadeedan qaataa inuu si fiican concept fiican u ka heli doono uu kana haysto koorsadan Cisco Certified ka uu noqon doono exam kana uu gali doono. Koorsadan inta ku guda jirtay waxaa dhigan doontaa concept aad u kala duwan. Koorsadan sidoo kale bishaarada wadata waxaa kamid ah inuu qaadan karo level kasta oo ardaynimo hadduu qofku Microsoft Office yaqaano dataset way ku filan tahay because anigu koorsadan waxaan ka bilaabay from basic to the advanced bangi waxaan doonayaa inay la jaanqaadaan ardayda aan concept networking ka haysan up to ilaa iyo dadka ka haysta oo advanced tegino. Koorsadan waxaan ku dhigan doonaa concept aad u kala duwan. Waxaad baran doontaa waa maxay networking-ku, sidoo la isugu xiraa, maxaa devices-ka isticmaala waa maxay, imisa nooc baa loo qaybiyaa. waxaan baran doonaa in marka network la sameynayo ma waxa la isticmaalaa hardcore ma waxa la isticmaalaa wireless haddii xadhka la isticmaalo ma xadhkaha fiber-ka la isticmaalaya mise xadhkaha ku shaqeynaya copper wire ku shaqeynaya la isticmaalaya haddii wireless tahayna ma towers-ka la isticmaalaya iyo antenooyin noociyada la kala isticmaalaya waayahay concept-ga markan isla afgarano waxaan u daadegi doonaa laba process uu u dhaco communication-ku imma inuu u dhaco communication-ku in OSI model uu isticmaalaya ama TCP model OSI model kaasi wuxuu leeyahay 7 layers buu ka kooban yahay layer kasta protocol gooni ah ka shaqeeya waxaan dhigan doonaa in detail every protocol kasta iyo layer ku ka shaqeeyo TCP-ga waa ka casriga ah hadda la isticmaalo wuuna ka fudud yahay marka la barbar dhigayo OSI model-ka waan baran doonaa ardayo sidoo kale waxaan baran doonaa IP version 4 kan baran doonaa walow IP version 6 hadda soo baxay oo sanadadii u dambeysay la isticmaalayay laakiin Afrika iyo wali waxa si isticmaalaysa Europe maadaama kombiyuutar ka yar ay leeyihiin Europeanka iyo Afrikaanku Asia iyo America uu ka buuxsamay waxay isticmaalaan IP version 6 laakiin still labadoodaba every router kasta uu isku bedelaa waxa laga doonayaa network engineering inaad IP version 4 configuration-kiisa sameyn kartid IP version 6 at same time ku wada sameyn kartid so inshallah bidnillahi al-karim in detail waxaan baran doonaa IP version 4-ka kadib waxaan arki doonaa sida subnetting-ka loo sameeyo configuration-keeda waan ka soconaynaa waxaan gelinaa qaybta labka markaan galno sidee switch iyo computer la soo xidhaa oo configuration-kooda loo sameeyaa sidee router iyo switch la soo xidhaa waxaan baran doonaa sidee baan secure uga dhignaa routerkeena iyo kombiyuutaradeena wax isticmaali doonaa SSH nagoo isticmaalina protocolkaas ka faa'iideysanayna iyo configuration ka sameyn doonaa ardayowga koorsadan waxa u badnaan doontaa hand on badan ama practice badan bay yeelan doontaa inshallah bidnillahi al-karim waayahay practicalka marka la sameynayo waxaan ku sameynaynaa Cisco Packet Tracer oo application ay leedahay Cisco shirkadaasi laguna talagalay ardaydu inay ku sameeyaan practice-ka as real life nagu eegyahay waan ka soconaynaa ardayo waxaan baran doonaa protocol aad u kala duwan VLAN baan sameyn doonaa switch-keena ka sameyn doonaa VLAN badan aan isku xiriirin doonaa waaye arday haddaba waxaan geli doonaa ugu dambeynta haddana inshallah protocolada static laga isticmaalo iyo dynamic routing protocols kuwa loo yaqaan waa kuwa switch-yada iyo routerada dunida configuration-kooda lagu sameeyo si xiriir u wada sameeyaan waxaan dhigan doonaa ribka OSPF-ka RGB-ga iyo protocol yar oo dhammaan hoostooda ka wada shaqeeya ardayga koorsadeeda qaata wuxuu u diyaarsanaan doonaa inuu examka CCNA-da uu ku baasi doono inshallah bidnillahi al-karim wilna dhibca sare sidan anigu ugu soo baasay waayahay waxaan dhigan doonaa concept aad u kala duwan sida as network engineering marka tahay protocol gooniya isticmaalaan dadka administrators-ka jira so protocolada adigu ku manage gareyn doonta switch-yada iyo routerada aan dhigan doonaa ugu dambeynta waxaan dhigan doonaa IP version 6 concept-yada aad buu balaadhayn ardayo halkan kaguma soo wada koobi karaye IP version 6 kuna maadaama dunida hadda casriga isticmaasho routerada iyo switch-yadii dambe la soo saaray 2021 wixii ka dambeeyay IP version 6 automatically ayay la jaan qaadi karayaan kuwa halkii horanaad configuration badan kaaga noqonaysa inaad ku samaysid waayahay concept-yada halkan kuma soo koobi karna arday koorsada waxaan kugu soo dhaweynayaa CCNA-da exam numberkeedu yahay 200/301 volume 1.1 soo dhawaada